sida walaal wax u dhiceen waxa weeye saraakiishu waa saraakiishii amniga ka sugaysay galmudug toole ayay xeryo halkaa ku yaalla oo dhinaca gurceel u dhow tababare iyo waxyaala lagu soo xirayay ayay saraakiishii meelahaas haysatay qaarna macallimiinta ka ahaa qaarna ay xafladaha tageen ayay ahaayeen marka shalay toole dhinaca gurceel bay jireen shalay galab bay soo carraabeen oo ay dhinaca balanbala soo aadeen marka mashaqadu waxa kula dhacday gurceel iyo balanbala dhexdooda maleeshiyaad hubaysan baana halkaas u galay oo halkaa ka geystay dhib badan oo saraakiishaasi la gaarsiiyey tirada dhimashada ilaa iyo hadda intaad xaqiijiseen waa meeqa ciidamadan sida rasmiga aanu haynaa waxa weeyaan ilaa 7 sarkaal ayaa la leeyahay ilaa mid labana waa la laayahay dhaawac meyd iyo ruux laba hayo marka waxa weeyaan waa arrin sidaas u dhacday raggii meesha marayay un wax hadda nool laba sheeg laba nin baa la laayahay la yidhi intaasna waa geeriyo waayahay wasiir ilaa iyo hadda ma ogtihiin sababta ka dambaysay in la beegsado saraakiishaasi ka tirsanaa ciidamada dowladda oo halkaa lagu laayo maya lama ogaan karo waa xaajo uguba aada ugu ah deegaanka ciidamo dowladdu leedahay oo dharka ciidamada loo yaqaano marna jidadka looma galo marka laga reebo dee shabaab iyo wax kale sidaasa dadka deegaanku maleeshiyaadyo waa jirjiraan oo habab beeleed isku haysta laakiin ciidanka kale ciidankii dowladdu ahaa in la laayay oo jidka loo galay unbaa hadda la ogyahay waana xaajo ugub nagu ah marka sida arrinta ka dambaysay iyo sida wax u jiraan inkastoo aan ku daba jirno haddana waa xaajo uguba marka wax dagaal ah iyo iska horimaad ma dhicin waxaa dhacay oo keliya waxa weeyaan miya in maleeshiyaadkaasi ay waddada galeen kadibna saraakiishaasi allah u naxariistee oo gaari saarnaa ay rasaas ku fureen maya wax dagaali ma dhicin oo arrin carrada lagu yaqiino ma nimanku arrin shaqadooda qarankay guteen balanbalay rabeen inuu hoyaadaan jidkana si caadi ay ku maraayeen nimankuna dab bay huwiyeen oo markaas ay aada ugu maaragtay meesha ugu laayeen nimanka marka dagaal iyo qaybo iska soo horjeeda midna maana ahayn ilaa iyo hadda laamaha amniga ee galmudug iyo ciidamada dowladda ee ku sugan deegaanadaasi wax war ah oo arrintan ku saabsan oo ay soo saareen ma jira wax wara kama soo saarin kaliya warkaas haddaan idaacadda u sheegayo oo annaguba aan dee wasaaradda warfaafinaan aan helna mooyaane ciidamada amniga iyo hay-adaha amniga iyo arrimaha gudaha iyo dowladda oo dhani arrinkaas markuu dhacay gurmad degdega oo arrintaas looga hortegayo ayaa oo dabagal lagu samaynayo ayaa la sameeyey ciidamada amniga iyo howlaha wasaaradda shaqada ku lahaana arrimahaas ayay ku maqan yihiin oo in gacan bira lagu soo qabto arrintaasi aad iyo aad laskaga xilsaarana waa lagu baxay waxayna ku mashquulsan yihiin in maaragtay halkaas geerida ka dhacday tirsigeeda in la sugo in dad dhaawixii uu jiro in sababto meeshu meel magaalo maahayn baadiyay ahayd nimankuna niman saraakiil oo maaragtay sarsare ahaayeen marka aad ay amnigu ugu mashquulsan yihiin uguna maqan yihiin waxaan rajaynaynaa saacadaha soo socda wax dhammaystiran iyo dadkii falkaas geystay oo lasoo qabto sharci la horkeena inay la imaan doonaan maleeshiyaadkii falkan geystay iyaga ilaa iyo hadda maxaa laga og yahay xaggee bay ku sugan yihiin maahan ciidan habaysan oo meel inta kasoo weerar tagay meel joogo lagu og yahay waxay ahaayeen xitaa tirsigooda lama yaqaano sabab dadkii sheegi lahaa waa dadkay laayeen laakiin un dee deegaanka o dhan baa aad loogu baxay dadka soomaaliduna haddii la dhex galo aad xoogga loo saaray waa wax la dareemi karo meesha ka yimaadeen iyo waxa ay yihiin marka un saacadaha soo socda ayaan la wadaagi doonaa warbaahinta wixii shaqaha amnigu ay ka soo qabtaan meesha ka yimaadeen iyo ciddi ka dambaysa